gool garanuugta weyda iyo gelinka hore yac kuma rido anigana gafinaneed iyo gardarra dumar igaga timi geedka riime laan hayo ima gelisa shidaad geedka riime leh yaan hay bal sawirka dulqaadkii buu sawirayaa inuu geed yahay marka heestoodaasi hees aad u fara badan oo dhul badan martay ayay ahayd labadaa qodob baa ugu caansan qodobkaa iyo qodob kaloo dadku aad ii weydiiyo oo ha ku qura gardhaalo la yidhaahdo taana aad lay weydiiyo oo cay iyo meelo kale uga kacaan laakiin cay ma ahayn meelahaasaa aan iminka ku odhan karaa waa ka xasuusnahay iyo marka ay leedahay waxaan filayaa horta inuu dhashay 1946 waayo hadraawi markay wada joogaan wuxuu odhan jiray 3 gub iga weyn baadiyuu ku dhashay hurre baadiyuu ku kacaamay nin dhalinyaro ah oo qalambaawi baa la yihahdaa noociisaasoo kale af soomaaliga bulshaya cayaartooya deegaankiisa aad looga yaqaan ayuu ahaa kacaankiisu sidaasuu hurre ahaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. halkan waxay kula sugan abwaan yuusuf shaacir waxaan wax ka weydiin doonaa taariikhdiisii oo kooban allaha u naxariistay abwaan hurre walawal oo galabta magaalada burco ku geeriyooday. abwaan waan ku soo dhaweynayaa in badan baa dee abwaan hurre walawal aad rafiiq ahaydeen taariikhdiisii oo kooban maxaad ka xasuusataa? ilaahay inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun. cismaan ibraahim warsame hurre walawal saaxiibkay ilaahay ha u naxariisto samir iyo iimaannaha inaga siiyo. cismaan taariikhdiisi wax badan baan ka xasuustaa waxaan filayaa horta inuu dhashay 1946 waayo hadraawi markay wada joogaan wuxuu odhan jiray 3 gub iga weyn baadiyuu ku dhashay hurre baadiyuu ku kacaamay nin dhalinyaro ah oo qalambaawi baa la yihahdaa noociisaasoo kale af soomaaliga bulshaya cayaartooya deegaankiisa aad looga yaqaan ayuu ahaa kacaankiisu sidaasuu hurre ahaa markii dambena nin sugaanyahana buu noqday qabyaaya heesaaya oo golayaasha iyo fagaarayaasha aad loogu yaqaan aniga aragtidiisii igu horreysay 1994 dirir dhabe ayay ahayd qudhee la odhan jiray nasiye ayaa la yidhi ninkaa hurre walawal baa la yihahdaa barigaa qudheedu waan yaraa intii dambe reer burcaanu isku noqonnay waanu isku majlis baanu ahayn halkaasaan kaga qabtay heestii isaga iyo dhex martay gabadhii cambaro inkastoo shirar hore oo nabadayn ahoo togdheer area ka dhacay la igu bartay haddana caam ahaan taasi uun barasho gobol bay ahaydee caam ahaan bulshadu waxay igu baratay markii heestaasi soo baxday ee aan soo gudbiyey raadiyo hargeysa iyo telefishinka jabuuti labadaa meelood baa aad u baahiyey oo ay ka baxday hurre markaa ninkaasuu ahaa ma ahayn nin sugaan oo qura lagu xusuusta hurre wuxuu ahaa nin khabiira oo xeeldheere ah oo dhaqanka soomaalida iyo afka wax laga weydiiyo ta aan runtii gocanaya geeridu waa xaqo iyado hadal ma leh laakiin meelaha aanan kolleyba anigu helaynin bay ka mid tahay siduu afka u yaqaanay ee marka aan wax garan waayo aan wax u weydiin jiray meelaha aanan iminka helaynin marka hurre ninkaasuu ahaa nin dhaqan yaqaana buu ahaa nin wax badan laga martiyuu ahaa filimayo in bugaag laga qoray laakiin barnaamijyo badan oo laga duubay baa jira oo isaga laga duubay iyo kuwa anigu aan duubayba intaasba way jiraan galabtay tiisii noqotay ilmo walanwal waxaan u malaynayaa isagaa ugu dambeeyey 4 nin bay intii anigu ogaalkayga ah way badnaa ilmo walanwal laakiin hurraa u dambeeyey 2 ninna nairobi ay ku dhinteen cabdi iyo qaasim dhowaan barya dhexdaasa hadraawnaalkan uu ku dhintay hurraa u dambeeyey ilaahay dhammaantood ha u naxariisto taariikhdiisii intaasaan imika sara joogga aan ku odhan karaya su-aalkaasi weydiiyo taariikhdiisa in badan baad kaydisay weliba sheekooyinkiisii dhex maray isaga iyo cambaro maxaad ka sii xasuustaa sheekooyinkiisii? wallaahi dee kamanaan diyaar garoobin geeriduna dee iska dareen bay leedahay oo qofka dareenkiisu wuu isbedelaa loo soo sheego saaxiibkii marka sheekadaasi waa sheeko caan ahoo aad suuqa ugu jirta waxaa ugu caansan inaan yahow gunbaa tahayno gole lagama odhan karo hadal gobi ku haasawdo la gartana namaad odhan ayaa caana
laakiin waxyaaba badan oo kale ayaan ka xasuustaayo wuxuu lahaa hurre mar dulqaadkiisa tilmaamayey wuxuu yidhi gool garanuugta weydaa iyo gelinka hore yac kuma rido anigana gafinaneed iyo gardarra dumar igaga timi geed korriime laan hayo ima gelisa shiidaad geed korriime leh yaan hay bukuli bal sawirka dulqaadkii buu sawirayaa inuu geed yahay marka heestoodaasi hees aad u fara badan oo dhul badan martay ayay ahayd labadaa qodob baa ugu caansan qodobkaa iyo qodob kaloo dadku aad ii weydiiyo oo ha ku qura gardhaalo la yidhaahdo taana aad lay weydiiyo oo malaa cay iyo meelo kale uga kacaan laakiin cay ma ahayn meelahaasaa aan iminka ku odhan karaa waa ka xasuusnahay iyo marka ay leedahay hadalka uu leeyahay hoygiina ina geeyo hararkaaga ii gogolo igu haybso dabadeedoo ayana ay leedahay nimaan sheeke walba saas hadalba maaniga u furayana ay leedahay uu sheeko caana iyo marka uu leeyahay miyaan gaadakacyaar iyo lixdan ay ku gabax tiriyo ina gaadis wada dhalay oo gardaqarar u weyn tahay oo iyana gawsheeda jilibka weli gamuuraan riyahayaga ka soo guro oo gurigiina soo tubo miyaa gaadakacyaar iyo guco laygu imanayn markuu leeyahay adigu sheeko xamaasad leh oo kaftan ah ayay ahayd maadaama adigu u dhoweyd sheekooyinkiisii ugu badnaa haddii marka la is idhaaho haddii lase wax ka qora oo taas wax badan baan ka hayaa xaqiiqatan laakiin wax badanna way duuban tahay oo isaga laftiisa wax badan buu ka warramay tiifiyada laga waraystay wax kaydana waa laga yaabaa in gurigiisa laga helo oo cajalado gabayadiisa waxaa ku duubay waan xusuustaa walow aanay baahin aan suuqa aanay gelin laakiin wahan jiray cajalada gabayadiisa ku jiraan gabay fiican buu lahaa runtii iyo dhaqanka ah marka waa la helayaa haddii la yidhaahdo wax ka qora waa la helayaa taariikhdiisa waa la helayaa carruur badan buu lahaa ilaa 7 inan iyo inantii sahara way dhimatay inamadu waxaan maaya imika inay 6 ama 7 labadaa mid yihiin u dhaqan yihiin aad buu u dhaqan yihiin